bismillaahi raxmaani raxiim soo dhawaada saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada barnaamijka falanqaynta caalamka waxaan qaybtan kugula wadaagi doonaa gobolka bariga dhexe dhaqdhaqaaqa culus oo mar kale la diiwaan gelinayo maraykanka wuxuu doonayaa dagaalka inuu dib ugu laabto iiraan tallaabada ay qaaday ee lagu difaacayo xarumaha nuclear-ka ee dowladda iiraan gobolka asfahan iyo gobolada kale ee dalkaasi nidaam difaaciidyada heeganka la geliyey wadooyinka u furan dowladda iiraan mar kale haddii weerar lagu soo qaado iyo shan arin oo xaaladdu ay ku dambeyn karto waxaan kaloo aan eegi doonaa saldhigga labaad ee la ogaaday Israa'iil in si qarsoodi ay kaga sameysay gudaha dalka Ciraaq guud ahaan xaaladda iyo waxyaabaha soo kordhay Putin socdaalka maanta uu ku tagayo magaalada Beijing oo caasimadda dalka Shiinaha ah maxaa la karkarinaya wararkaas iyo madaxweyne Erdogan oo sheegay inay ka badbaadeen in dagaalkii ugu dambeeyay ee bariga dhexe ay ku biiraan ugu yaraan dagaalkaasi in lagu jiidana ay ka fogaadeen qodobo kale ayaa raaci doona insha Allah soo dhawaada saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada mar kale iyo maracadda show barnaamijka falanqaynta caalamka ka hore inta aanan barnaamijka iyo faahfaahintiisa aanan eegin waxaan aan ula yaabay yani barnaamij aan xalay baahinay oo dhaqankeena ku saabsan iyo sida yani aan u sii lumayno iyo sida looga falceliyay yani falcelinta ma aan qaybta commentiga sida loo daawaday tirada dadka daawaday iyo daqiiqadaha la daawaday muuqaalku waxa uu ka koobnaa ilaa 40 daqiiqo oo aan kaga hadlaynay marxaladaha ugu dambeeya ee Soomaalida iyo dhibaatada dhanka dhaqanka iyo dhalinyarada iyo fasaadkii waxyaabaha la midka ah qaar dad badan oo wanaagsan ayaa jira waliba inta wanaagsan ayaa badan laakiin inta xumaanta nagu dhaxbitinaysa ama nagu faafinaysa ayaad muddo inay aad ugu xoogeysanayaan baraha bulshada marka waxaan la yaabay tirada daqiiqadaha la daawaday isma aanan lahayn muuqaal 40 daqiiqo ah ayaa 4 daqiiqo ama 5 daqiiqo meesha ugu badan laga daawan doonaa oo quseeya dadkaygii Soomaaliyeed maxaan sidaa u leeyahay 10 maalin ka hor waxaan halkan ku baahiyay dood anagoo 3 ruux aan ka qayb galnay oo yani aan kaga hadlaynay bariga dhexe iyo marxaladaha jira doodaasi tan way ka daqiiqada badneed 45 daqiiqo ayay socotay haddana doodaasi daqiiqadaha la daawaday yani aad bay kaga duwaneyd tan aan maanta kula wadaagayo ee aan xalay baahinay kan ugu yar baa doodaas wuxuu daawaday 15 daqiiqo marka waxaan isweydiiyay maxaa qaldan wixii na anfacayna ma intaa kooban baa laga daawanaya kan ugu badan ba 4 daqiiqo ilaa 5 daqiiqo daawaday barnaamijkii xalay barnaamijkaas oo bariga dhexe kaga hadlaynayna 15 daqiiqo baa kan ugu yar uu daawaday marka halkay wax ka qaldan yihiin أنا وان سوق قبل ويا هالك وحكي قلدين بل إلى الرادية أو إلى بعض جوابا وحنا أوقاتان دقن كوناكسن وقيب كم ده يعني أخلاقيات كن يدين تنبا نبينا محمد نبتقلين نحرس كل كيسات واتي ويري يعني ما يجي واحد جنة أهانية كينا أخلاق ده وناكسن مركا أخلاق ده يو دقن كوناكسن مال لغة تجمله وإنه قف كشان يعني مالود كوناكسن يهاي أخلاق شخصيا إنه ليه هاي أو شخصية أما كلجي مركي وياه إنه واحد وناكسن سميه أخلاق قويسن إنه ليه هاي قويس كيسة يعني واحد وناكسن وكل ما عامله أخلاق بلشة إنه ليه هاي أو بلشة حافظها سكولها رئيسن وناق وكل رقمه أخلاق يعني سياسي إنه ليه مركي حل وقبتنا مسؤولية وقبتنا وصلنا قن يعني لا إما أركي واحد ما سمينا ياب إيو أخلاق اجتماعية يعني بلشة جودهان أو كله يعني مقالوين كي جودهان ضد الصوماليين مركا أخلاقياتك ووحاد وناكسن رقم هذا نقول بهاي أننا كهرتي كرنا ويعني للرجلين أنت أنا صمين لهم قف واحد صمينيا واحد وناكسن كم واحد وناكسن صمينيا إن عندي رجلينه كم واحد صمينيا أنا عن ميل وقصوا ذا جيسنه إن شاء الله تعالى وحرجينا يا عشان طبعا كأكون قف دعوتي مقالدة يقدم برنامج كسكجار له لا بقفوا كم ده هدي إن لا فهمان إن شاء الله وحرجينا يقدم بين إن دتك وإذل إن لا فهم دونان أن صار لابنه رالي هذا برنامج كارن تمانية قصين لكن حوجات تصال بيجا حيد مركا أن كهر مرنا قبل كاليفورنيا دلك أمريكان كام إلا يشان روح إياه لغو الرمية إني جيريودين كده مركي لبر روح وهو بيسنة يورر كقادن ميت كمده إن حرمها إسلام كأم مساجد وين أكويا لقبل كاليفورنيا laba kamid ah dadka geeriyooda waxa la sheegay inay ahaayeen dadkii ilaalada qaaska ahaa ee amniga masaajidka ilaalinaya ama xaruntan mas'uuliyiinta Mareykanka arrintan waxay sheegeen baaritaan in lagu sameyn doono qaarkoodna waxa la sheegay dadka weerarka geystayba inaanay qaangaarin dalka Turkiga hadii aan eegnana ilaa 4 ruux ayaa la sheegay inay geeriyoodeen 6 kalena dhaawacyo ay soo gaareen kadib markii ruux hubeysan uu weeraray xarumo kala duwan ama meelo kala duwan gobolka ama magaalada Mersin lagu magacaabo oo koonfurta dalkani Turkiga dhacda
ruuxa hubeysan ayaa la sheegay gaari inuu watay maqaayado iyo goobo dad ay ku sugnaayeen ayuu dul tagay kadibna qaarkood dadkii ayuu dilay waliba mid ka mid ah wuxuu ahaa ruuxii maqaayada iska lahaa iyo ruux shaqaale ah oo maqaayada ka shaqaynayay halka dhaawacyo ay soo gaareen dad kale oo la sheegay inuu ugu tagay goobihii ay ku sugnaayeen mas-uuliyiinta dowladda turkiga ayaa sheegay arrintaasi inay baaritaan ay ku sameynayaan waxyaabaha kasoo kordhay insha allah waan kula wadaagi doonaa madaxweynaha dowladda Mareykanka maalintii shalay oo Isniin ahayd waxa uu sheegay inuu ka baaqsaday dagaal maanta la doonayo in lagu qaado dalka Iran kadib markii codsi baajin ah uu ka yimid 3 dowladood oo qaliijka ah kuwaas oo la sheegay inay dalbadeen madaxweyne Trump inuusan dagaalka dib ugu laaban hadalkaas wuxuu jeediyay kadib markii uu ka soo laabtay magaalada Beijing oo caasimadda dalka Shiinaha ah ma waxaa jira macluumaadka ah in Shiinaha arrinta Iran looga bedeshay dhanka iyo Taiwan aad bay u adkaanaysaa in Shiinaha lagu qanciyo inuu gabi ahaanba Iran uu ka tanaasulo marka la eego dhanka shidaalka hadii bedel kale ama waxyaabo kale aanay jirin waxa soo baxaya Mareykanka inuu Beijing ku qanciyay in gabi ahaanba ay joojin doonaan taageerada dhanka hubka ee la siinayo dowladda Taiwan sidoo kalena la joojin doono waxyaabo badan iyagana laga doonayo inay joojiyaan xogaha dhanka sirdoonka ay siinayaan dowladda Iran iyo taageerada iyo shidaalka ay ka iibsanayaan Iraniyiinta oo la rumaysan yahay dhaqaale badan inay ka sameeyeen sanadihii ugu dambeeyay madaxweyne Trump marka wuxuu yiri waxaan doonaynay inaan dagaal dib ugu laabano maanta oo Talaado ah laakiin dib ayaan arrimahaasi aan u dhignay sababtoo ah codsi wuxuu inooga yimid qaar ka mid ah dowladaha qaliijka laakiin dowladda Iran markii hadalkaasi ay maqashay durba waxay bilowday in heegan buuxa la geliyay qaybaha kala duwan ee nidaam difaaciyeed wakaaladda wararka ee dowladda Iran ee Mehr News Agency liiraahdo waxay baahisay in heeganka la geliyay ciidamada amniga ee dowladda Iran iyo nidaam difaaciyeed qaar ka mid ah magaalooyinka sida magaalada Isfahan oo muhiim u ah dowladda Iran marka la eego dhanka hubka nuclear-ka iyo xarumaha muhiimka ah halkaas ku yaala iyo jasiiradda lagu magacaabo Qaraj jasiiradan waxa la sheegay nidaam difaaciyeedka iyadana heegan in la geliyay jasiiradan waa tii aan hore idin kula wadaagay yani macluumaad kala duwan ahmiyadda Iran ay u leedahay shidaalka 90 ilaa 80% ay ka dhoofiso iyo xarumaha muhiimka ee militariga iyo sidoo kale inay muhiim ay u tahay iyagoo ka ilaalinaya dhanka iyo marinka Hormuz Iran hadda waxa lagu waramayaa xarumahaasi nidaam difaaciyeed yaalay ama magaalooyinkaas in heegan la geliyay iyadoo markii horeba ay heegan ku jireen qaybaha kala duwan ee ciidanka mas'uul u hadlay ciidanka Qatim al-Anbiya ayaa waxa uu shaacu ka qaaday ciidamadooda inay u diyaarsan yihiin inay jawaab kasta ay ka bixiyaan weerar kaga yimaada dhanka iyo Mareykanka iyo Israa'iil muddooyinkii ugu dambeeyay Israa'iil ayaa waday dhaqdhaqaaq xoogan Mareykankana sidaas oo kale waxa soo baxaya Jarmalka in laga soo dhaqaajiyo diyaarado dagaal iyo hub aad u tiro badan oo la geeyay dalka Urdun iyo sidoo kale Israa'iil waliba Urdun ama Jordan waxa la sheegay in ka badan intii Israa'iil la geeyay in la geeyay halkaas sababtuna maxay tahay waxa la isweydiinayaa ama halkaas ay Mareykanka doonaya inuu markaas si weyn uu kaga difaaco weerar kaga yimaada dhanka iyo dowladda Iran inta gantaalada Iran aysan gaarin gudaha Israa'iil wararka intaas waxay ku dirayaan Mareykanka in maraakiibtiisa dagaalka uu dhaqaajinayo ciidan badan ay gobolka ay kaga sugan yihiin lana diyaarinayo qorshe u eg sida in weerar cadaadis lagu qaado ee dowladda Iran si ugu yaraan u ogolaato waxyaabo iminka ay diidan tahay xukuumadda Washington dhankeeda waxa lagu waramayaa garoon diyaaradeedka Ben Gurion inay geysay nidaam difaac iyo qalab aad u tiro badan garoonkaasi waxa horay ugu xiriirnaaba diyaarado aad u tiro badan gaar ahaan diyaaradaha la sheegay inay yihiin kuwa shidaalka hawada ku siiya diyaaradaha kale Iran ma kaliya ma ahan jasiiradahaasi iyo magaalada Isfahan goobta ay heeganka ka gashay sidaas oo kale magaalada lagu magacaabo Tehran oo caasimadda ah iyo magaalooyinka muhiimka ayaa lagu waramayaa in nidaam difaaciyeeda heegan buuxa la geliyay ciidankana amar la siiyay mas'uulka ugu sarreeya dowladda Iran Ayatollah Mujtaba Khamenei ayaa xog kooban ee wasaaradda caafimaadka ee shalay ka bixisay iyaga oo sheegay yani dhaawacyo daran inay soo gaareen wajiga uusan ka guban laakiin dhaawac uu jiro oo dhanka jilibka iyo dhegta iyo sidoo kale waxyeelo kooban oo soo gaartay laakiin hadda waliba dhabarka ah laakiin hadda uu ka bogsanayo ciidamadii uu la kulmayo saraakiishii uu la kulmayo heegankiina yani inuu amar bixiyana uu dib ugu soo laabtay macluumaad isaga ku saabsan aad ayaa loo baadi goobayaa marka la eego dhaqdhaqaaqyada hadda soconaya ma waxay ka dhigan tahay dagaalka in dib loogu laaban doono waa waxyaabaha la isweydiinayo haddaba haddii Iran la weeraro maxay tahay jawaabta ay bixin karto wargeyska New York Times lagu magacaabo ayaa warbixin dheer arrintan ka qoray laakiin aan ku soo koobo waa intii aan wada garanaynay haddii dowladda Iran la weeraro jawaabteeda ugu horeysa waa dhanka qaliijka si gaar ahaaneed ceelasha shidaalka warshadaha biyaha sifeeya dekadaha iyo sidoo kale maraakiibta saliidda iyo goobaha shidaalka laga soo saaro
goobta labaad ee Iran ay beegsan karto ama ay kaga jawaabi karto waa marinada dhanka badda inay carqaladeyso ama ay xirto si lamid ah marinka Hormuz sida ay u xireen sidoo kale marinka Bab al-Mandab waa waxyaabaha la isweydiinayo iyo suuragalnimada Xuutiyiinta go'aankaas oo kale inay qaadan karaan arinta labaad ay sameyn kartana ama arinta saddexdan iraade waa in weerar ay ku qaadaan dalalka ay tuhmayaan si gaar ahaaneed Imaaraadka Carabta Sacuudiga iyo sidoo kale Kuwait iyo xitaa Jordan oo ay rumaysan yihiin inay si weyn ula shaqeynayaan Mareykanka iyo Israel meelaha kale ay beegsan karayaan ee aadka loo hadalhayo lagana cabsanayo waa dhanka internetka iyo keebalada marinka Hormuz yaala oo dhowr jeer ay ku hanjabeen inay lacag xitaa ka doonayaan haddii kalena ay beegsan doonaan xaaladu aad bay u adag tahay dhaqdhaqaaqyo ayaa soconaya Iiraaniyiinta dhankooda fariimo kala duwan ayaa soo gaaraya waa tii shalay ay fariintii jawaabtii ay gudbiyeen qodobada qaar oo Pakistan la gaarsiiyay kadibna loo gudbiyay dhanka iyo Mareykanka waxyaabaha ka soo kordha arrimahan barnaamijyadeena kale ayaan kugula wadaagaya insha Allah madaxweynaha dowladda Ruushka Vladimir Putin waxa maanta uu tagayaa magaalada Beijing oo caasimadda dalka Shiinaha halkaas wuxuu kula kulmi doonaa madaxweyne Xi Jinping waxay ka wada hadli doonaan arrimo dhowr ah socdaalkiisan waxa uu ku soo beegmay iyadoo maalmo ka hor magaalada Beijing uu ka laabtay madaxweyne Trump oo lagu waramayo inay arrimo badan ay ka wada hadleen ma waxa la doonayaa isbedel weyn in lagu sameeyo nidaamka caalamiga ah Shiinaha iyo Mareykanka suuragal ma tahay inay heshiiyeen Putin la doonayo in arrintaas lagu qanciyo mise waxa soconaya qorsho Shiinaha uu ka gabi ahaanba faraha kala bixi doono arrimaha dawladda Iran Ruushkana uu doonayo in arrimaha Iran uu ku wareejiyo in ka badan inta Ruushka hadda Iran uu taageeri doono madaxweyne Putin dawladda Iran lama sheegin waxyaabaha sida rasmiga ay kaga wada hadli doonaan ilaa maalinta biri oo 20ka bisha ayuu madaxweynaha Ruushka uu ku sugnaan doonaa magaalada Beijing waxaana ay kulamo yeelan doonaan isaga iyo madaxweynaha dalkaasi iyo mas'uuliyiinta dawladda Shiinaha arrintan waxay ku soo beegmaysaa iyadoo labada dawladood si weyn loogu eedeynayo inay anti reer galbeed yihiin aad uga soo horjeedaan Mareykanka iyo xulafadiisa inkastoo socdaalkii ugu dambeeyay ee madaxweyne Trump uu ku tagay magaalada Beijing la sheegay wax badan inay iska bedeleen Iranna afayeenka baarlamaanka Mohammad Baghir Ghalibaf ama Khalibaf ayaa lagu waramayaa inay u magacaabeen inuu noqdo ergeyga gaarka ah ee ka shaqeynaya xiriirka Iran iyo sidoo kale dawladda Shiinaha hadda ayayba Iiraaniyiintu leeyihiin mas'uulkan ayaaba xilkaasaan u magacaabnay inkastoo sheekadahan si official banaanka aysan u imaan si rasmi ah banaanka u imaan haddana waxaa lagu waramayaa in mas'uuliyiinta ugu sarreeya dawladda Iran go'aankan ay gaareen waan arki doonaa qodobkan waxyaabaha ka soo kordhay insha Allah iyadoo dhawaan wargeyska Wall Street Journal banaanka uu keenay xog ku saabsan in Israel ay saldhig qarsoodi ka sameysay saxaraha dalkaasi Ciraaq ayaa haddana waxa soo baxaya macluumaad ah saldhig labaad inuu jiro oo isla saxarahaasi Israel ay ka sameysay dabayaaqadii 2024 ujeedkana uu ahaa inay u adeegsadaan weeraro ay ugu yaraan suuragal tahay inay ka fuliyaan Iran iyo sidoo kale Ciraaq ama xitaa dalka Syria inkastoo ujeedada ugu weyn ee saldhigyadan loo sameeyay ay tahay dagaal ka dhana dawladda Iran ayaa saldhigii hore waxa banaanka keenay nin arijiro ahaa hadda waxaaba soo baxayaba in ninkii arijiraha ahaa ay dileen ciidamada Israel markii xogta saldhigani uu ogaaday kadib dhaqdhaqaaq uu sameeyay ka hor inta uusan macluumaadka la wadaagin ciidamada dawladda Ciraaq haddana waxa soo baxaya saldhig labaad in Israa'iiliyiinta halkaas ay ka sameeyeen sawirada yaxgacmeedyada lagu qaaday ayaa muujinaya wadooyin diyaaradeed oo dheeraada iyo dhismayaal ciidan oo Israel ay ka sameysay mid ka mid ah deegaanada saxaraha ah saldhigan oo la sheegay inuu ahaa mid ku meel gaar ah wuxuu ku yaalay dooxada Xumayr lagu magacaabo ama waadi Xumayr oo dhaca saxaraha Naqiib ee dalkaasi Ciraaq halkaas oo wadada garoonka diyaaraduhu ay gaarayso ku dhawaad 2 kiiloomitir buuraha iyo sidoo kale deegaankaasi darbiyada adag leh ayaa u soo galiyay saldhigan in gabi ahaanba xogtiisa aanan la helin sidaasina uu ku helay difaac iyo sidoo kale in aragtida dadweynaha gabi ahaanba uu ka qarsoomo wargeyska New York Times ayaa daabacay warbixin lagu sheegay in ciidamada Israel ay bilaabeen qorshaha dhismaha saldhigani ku meel gaarka ah dabayaaqadii 2024 waxaana ujeedadu ay ahayd si loogu adeegsado dagaalo mustaqbalka oo gobolka ka dhaca wargeyska waxa intaas uu ku daray Mareykanka inuu xog uu ka hayo ugu yaraan hal saldhig oo Israel ay leedahay tan iyo 2025 iyada oo si rasmi ah loogu wargelin dawladda Ciraaq waxa taa ka sii daran dawladda Ciraaq mas'uuliyiinta amniga waxa laga soo xigtay in xilligii colaaduhu ay jireen lagu amray dawladdaasi in gabi ahaanba raadeeradu ay damiyaan si gaar ahaaneed Mareykanka ayaa lagu waramayaa inuu Ciraaq ku amray daminta raadeerada cutube ka tirsan ciidanka gaarka ee dawladda Ciraaq ayaa howlgal degdeg ah oo dhanka cirka ka fuliyay saldhigaasi laga helay saxaraha Naqiib
ciidamadu waxay xaqiijiyeen halkaasi inuusan ka jirin ama waxyaabaha qarxa miinooyin ama maleeshiyaad inaanay ku sugneen intaasi kadib ciidanka shacabka xasdu shacabka loo yaqaan ama xasdiga shacabka dalkaasi ayaa bilaabay howlgalkii loogu magacdaray sugidda madax banaanida si loogu xoojiyo ammaanka saxaraha galbeed ee dalkaasi wadada isku xirta magaalada Karbala iyo saxaraha Naqiib loo yaqaano saldhigga koowaad nin xoolo dhaqata ayaa helay laakiin markii dambe waa la dilay taliyaha cutubka koowaad ee ciidamada gaarka ee dowladda Ciraaq General Ghalib Maxamed ayaa sheegay in ciidamada uu hogaaminayo aysan helin wax koox sharci darro ah ama ciidan shisheeye oo goobta saldhig koowaad ka helay laakiin baraha bulshada ayaa si weyn looga falceliyay wararka ku saabsan labada saldhig ee sirta ah sida telefishinka Al Jazeera uu baahiyana dad badan waxay sheegeen in haddii dowladda Ciraaq aysan ogeyn jiritaanka saldhigyadan ay tahay musiibo dhanka amniga halkii ay ahayd inay ogaadaan xogta haddii ay ogaan lahaydna waxa la yiri waxayba ahaan lahayd musiibo kale oo ka sii daran qaar kalena waxay ku doodeen in Israa'iil ay saldhigyadan u adeegsatay iyada oo ka dhigaysa ciidamo Amerikaan maadaama diyaaradaha iyo hubka la adeegsaday yihiin kuwa Mareykan ah isla markaana ay jirto wada shaqayn dhow oo u dhaxaysa Mareykanka iyo sidoo kale Tel Aviv ugu dambeyntiina madaxweynaha dowladda Turkiga Erdogan ayaa shaaca ka qaaday in ay ugu yaraan ay ka fogaadeen qorshe la doonayay in lagu soo jiido dagaal ka dhaca guud ahaan gobolka Bariga Dhexe gaar ahaan dagaalkii ugu dambeeyay ee Iran Mareykanka iyo sidoo kale Israa'iil u dhaxeeyay dhinaca kalena telefishinka Al Jazeera ayaa daabacay warbixin majalada Newsweek lagu daabacay oo ka hadlaysa 5 arrin oo ay xaaladda ku dambeyn karayso marka la joogo gobolka Bariga Dhexe gaar ahaan xiisadda u dhaxaysa Mareykanka iyo sidoo kale Iran suuragalka koowaad in dagaalka dib loo bilaabo si heshiis loogu qasbo dowladda Iran yani in cadaadis la saaro meel kooban la duqeeyo si ay Iran heshiis u ogolaato suuragalka labaad in Iran dib loogu celiyo cadaadiskii dhaqaale ee cunaqabataynta iyo waxyaabaha la midka ah ee dib loogu soo rogo suuragalka saddexaadna waa in dagaal iyo waqti dheer yani jidid dheer la galo taas oo daalin ku noqonaysa ciidamada amniga iyo dhaqaalaha dalka Mareykanka suuragalka afraadna in dalalka qaliijka si rasmi ah dagaalka loogu soo daro ama dagaalka lagu soo jiido markii horeba qorshahaas ayaa la doonayay laakiin qaarkood ayaa diiday iyo suuragalka shanaad oo ah xabajoojin yani dhanka muuqaalka ah laakiin hoos dagaal ayaa ka soconaya sida hadda xaaladdu ay tahay cabsida jirta xogaa dagaalo kooban ayaa lagu dari doonaa suuragalnimadaas ayuu wargeyska Newsweek uu daabacay maanta wax walba oo ka soo kordha arrimahan barnaamijyadeena kale ayaan kugula wadaagaya insha Allah like saa muuqaalka la wadaag saaxiibadaada waad mahadsantahay guud ahaan falanqayntii qaybtaana waa naga inta